sagaal caruur ah oo ka ugu weyn yahay 4 jir ayaa saaka markii uu soo xidhay markabka Nova 2 dekada magaalada Berbera ayaa laanta immigrationka faraceeda dekada waxa ay markabka ugu tageen nin iyo gabadh dhalashadooda Oromo ka soo jeeto oo wata sagaalkan caruur oo ka ugu yar yahay 1 sano. caruurtan ayaa isugu jira 5 wiil iyo 4 gabdhood. ninkan ayaa waxa haddaba ka hadlay taliyaha laanta immigrationka faraca dekada Berbera Umar Ali Bidar iyo taliyaha rugta booliiska ee dekada Maxamed Dacar. waxaan fuulay markii aan fasaxaynay markii aan fasaxadii galay ayaa waxaan aragnay iyaga badan wata iyo gabadh ka socota. marka ninka waxaan weydiinay su'aal iyalka hooyada meeday wuxuu nagu yiri waxay gashay Sacuudiga. markii dibaan xogayso waraysi badan sameeyay waxaan ogaanay inuu dhalin iyalkan waxay ka soo watay lix يعني نيكن magaciisa waxa weeye Maxamed Cismaan Cabdillah waa nin Oromo gabadha la socotay waxay Faadmo Ismaaciil Cabdi waa nin Oromo wati waxaan dhalay mid caruurta magaceedu yahay Sabriya Ahmed Faarax iyo laba ciyaal kale wadaayin oo magaceedu Naadiyo iyo Saamiyo iyo Naadiyo Maxamed Cali markaan ogaanay in aan ciyaalkan safaara ay dhalin la soo xaday waxaan u yeernay ماريا كده قالوا سلام جواسو شاغلي سلام جواسو الله هلي ماريا كده ساسان كوريجني ciidanka booliiska runtu waxa weeye waxa lagu qabtay markabka Nova 2 ayaa laga soo rogay markii immigration ka soo rogeen laanta socdaalku ayaan caruurtaasi oo iswada leeg oo aan qofna qof la walaalahayn uu nin kaliya lix caruureeyay aniga wata ayaan garanay markaan ninka wato waxa la yiraahdaa Maxamed Ismaaciil Cabdilaahi gabadha la socotay iyaduna saddex wadatay waxa la yiraahdaa Faadmo Ismaaciil Cabdi markabka waxa la yiraahdaa Nova 2 waxaanu ka keenay bay yiraahdeen Yaman marka waxaanu soconaa bay yiraahdeen Ethiopia dadkaas ma aha dadkii caruurta dhalay baaristoodina way socotaa caruurtaasina waxay u eg tahay caruur aan ahayn dadkii dhalay inay wataan ma wataan caruurtaasi waa caruur waxay noola eg tahay inay tahay caruur soo xaday ama laga gacansanayaba. welina haddaba waxaa socda baaritaankii sida ay sheegeen labadaasi taliye waxaa iyaguna dhinacooda goobjoog ka ahaa barsaabka Saaxil Maxamuud Cali Saleebaan iyo maariyaha dekada Berbera Engineer Ali Umar Maxamed Ali Xorxor oo isla saaka caruurtaasi u kaxeeyay guriga madaxtooyada ee magaalada Berbera halkaasi oo la dejiyay guri AC ama qaboojiye leh oo loo qabtayna 3 dumar oo caruurtaasi haynaya. waxa kale ay mas'uuliyiintani gobolka Saaxil ay sheegeen in ay arinkan aad uga argagaxeen labadan shakhsi ee Oromada ah ee ku dhiiraday in ay caruurtan aanay dhalin ka soo kaxaystaan dalkaasi Yaman. qof ay Oromada ahi waxa ay ku wadeen dalkaasi Itoobiya. caruurtan ayaa 6 kamid ah waxa ay u soo sameeyeen go home warqadaasi oo ka soo baxday safaaradda dalkaasi Soomaaliya oo ku leeyahay magaalada Sanaa ee dalkaasi Yaman.